السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديوغان maanta uu ka duwan yahay fiidiyoyadii hore ee uga barateen in luqadda Jarmalka aan ku macneeyo, laakiin waa war ku saabsan wadanka Jarmalka oo khuseeya dadka ajaanibka ah ee isa soo dhiibaya. Jariidada Bild ee ka soo baxda wadanka Jarmalka ayaa shalay war ay qortay aan akhristay. Wasiirka caafimaadka ee Jarmalka oo la yiraahdo Jens Spahn ayaa codsanaya in dadka qaxootiga ah laga qaado baaritaan lagu ogaanayo da'doodu intay tahay, khaasatan dadka da'da yar isku dhiibaya. Wuxuu rabaa in la isticmaalo farsamo mamnuuc ahayd in lagu arko ama lagu baaro qofka da'diisa oo lafaha la baaro waayo dadka caafimaadkooda uma fiicna. laakiin isaga kaliya maaha ra'yigaas, waa dadkii baarlamaanka ku jiray oo dhan waxa la qaba. saas daraadeed waxa ay rabaan in la sameeyo farsamadaas oo dadka la ogaado inta ay jiraan oo dariiqadaas loo maraayo. Waxay ka codsadeen jaamacadda Saarland in ay isticmaalka raadiyoogan ay samayso projectigaas lagu siiyey waxaana ku baxaya 1 milyan. natiijadana waxa laga rabaa in ay soo baxdo dhamaadka 2020. waxay sababtu tahay waxa jira dad isku dhiibaya da' ka yar 18 laakiin da'dooda rasmiga ay ka weyn tahay 18 oo dambiyo waaweyn gala sida warkan ku qoran. wiil Afghanistan ah oo isku dhiibay 15 jir 2015 ayaa gabadh ula dhiganaya iskoolka Jarmal ah oo 15 jirta uu la saaxiibay uu dilay. markii dhakhaatiir loo geeyay waxa la ogaaday in uu da'dan ka weyn yahay oo waxa lagu xukumay 8 sanadood iyo 6 bilood. saas daraadeed waxa aan dadka walaalaha ka codsanaynaa markay isa soo dhiibayaan in ay maad aragtaan ay da'dooda saxda ah iska sheegtaan oo aynan qofba ku maad aragtaan ay tala ka qaadanin. waayo dad waxa jirta ku dhahaya haddaad isku dhiibto 20 ama 30 sharci laguma siinaayo, wax laguma qabanayo. dad waxa jira kugula talinaya inaad da'daada bedeshid, magacaaga xataa aad bedeshid. markaas waxa idinkula talinayaa in aad ka fikirtiin oo idinku qaraar qaadatiin oo da'diina saxdana aad iska sheegatiin. Takalaan ku daray waxay tahay dadka isku dhiibay imika maxaa la dhahaa da'da yar inay iska ilaaliyaan dambiyo waaweyn oo hadhow toole qatar ku gelin kara. waayo dhakhtar baa lagu diri, waa lagu baari. marka lagu baaro waxa la heli in da'da aad sheegatay aanad jirin oo ka weyn tahay. markaas noloshaadii halkaas ayay ku qasaari oo maad aragtaan aad ku waayeysaa shabaabnimadaadii. fadlan sii faafaa fiidiyooga si ay dadka kale uga faa'iidaystaan. like iyo subscribe ha ka iloobin.